السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو نقد وناكسن وحيس لو ولكن أشعر حسين ما أنت محن وضع معاك هذا الربا. وحن هذا الربا الرير أو السوشيال ميديا ساود حمرية. أرنكاسنا وحويا نكلا يراهدو شينا علي يو نشوع الرالي. سومالي ذا مركز سو يكتم الضاعات إلى هي بكتاي مربى كتاي. وحيالا بدن مركز سو يكتو واحد صورة ساعتك قاركود وشاهل. وحويان waxay qaarkood soo leeyihiin oo social media kaga hadlayaan mashruuc raale oo qosashay ninkii shiina culay oo waxaan ku yiri xiriir waxda aan macquul ahayn oo aqliga gali karin ayuu qof waliba meel kaga soo hadlaya waxa weeyaan horta wax la buunbuuniyo way ka ka roonbeeraa reexamar waxa weeyaan waxyaalaha aad arkaysaan ama daawanaysaan كلي dadku markay Soomaali yihiin ee af ku wada hadlayaan ay waliba isku qadiyad yihiin oo social media ku wada jiraan way isku iman karaan way wada sheekaysan karaan way wada hadli karaan waa caadi waa wax normal weeyaan laakiin hadii aad la yiraahdo wax weeyaan maanta nijuu araale oo hebel la joogta bari toolana hebel kale la joogta oo نعم لجوجتان كأما صور كلاجة سو قدام فيديو جاش كسر دوبين dadku ay wax ka sii dayaan oo wax been intay ku dardaraan kadibna social media uu qabsado kadibna laga waxaas waa wax laga qurux badan yahay weeyaan waxa leeyahay Soomaalida inta beenta ku qaraabata waxaan jirin oon joogin dadka uga warrama waxaan leeyahay warniyo hadii social media ku jirto wax run ah oo dadku ka qaadan karaan inta bulshada u soo bandhigto waxa weeyaan ka qaataan laakiin hadii aad wixii afkaaga soo maraba dadka aad u sheegto waxa weeyaan dhibteeda leedahay marka waxa leeyahay nijuu raale iyo shiina culay wax ka dhaxeeyay ma jiro wax xiriir oo ka dhaxeeyayna ma jiro waxa weeyaan dadkan wax walba soo oranaya ninka shiina culay waxa weeyaan waa nin reerle oo carruurle oo wada aragteen waa nin aqli badan weeyaan social media familkiisa ma keeno sawir xitaa kama soo qaado ma soo geliyo horana uu nigu sheegay oo wuxuu yiri anu ma jeclay inaan carruurtayda ama familkayga soo dhaxgeliyo wax social media la yiraahdo waxyaalaha qaarkood in dadku ay qaataan baa fiican ninku markuu aqligiisu saa u fikirayo xitaa dadka Soomaalida majority markaas wada eegto ee social media ku jira waxaad arkaysaa nin waliba isagoo naagtiisi ay garab fadhido ay wada hadlayaan ay wada sheekaynayaan ma jecla isagu only one isagoo kaliya taa bartayni soo fadhiista in qanciya oo wax wal oo jirana in sheega marka qofka noocaasa hadii la yiraahdo maanta jacayl cusub uu samaystay uu qof kale wax kale ka soo hadlo uu qof kale wax kale ka soo hadlo yaa la rumaysanaya marka yaa la rumaysanaya cid la rumaysanaya ma jirto marka waxa weeyaan Soomaalida ku qaraabanaysa la wax weeyaan shiina culay nijuu araale maanta xiriir cusub wada yeesheen wixii hore ayaad arkaysay siday haayeen si keeyo nigu ma weelinayo in lahaa maanta jacayl cusub baan samaystay waqtiga soo fadhiiso doonta jacaylkayga magacayga wada taqaaniin waxa ay nigala hadlayay wixii ay ku dambeysay sheekadu wadigii maqlay ee aragteen marka waxaan leeyahay Soomaali maxamed war waxyaalaha qaarkood wax la qaatiyo aan wax la qaadan baa jira qaadanina wax walba taa markaan dhinaca kaga gudbo horta video clip aan daawaday video clip aan aad iyo aad u jecelahay oo mar dhaweyd aan daawaday waxyaalaha qaarkood markaad aragto oo waxaad ku faraxdo iyo waxaanad ku farxin bay tahay nin la yiraahdo Taliya Landere oo waqtiyadii ugu dambeeyay TikTok-ta aad u isticmaalayay oo markaad wajigiisa aad aragto aad ka naxaysid ahayd ninkan wax miyuuna cunin duruufta haysay waaxay dawladda Soomaaliya militariga ku jira lalaha oo kulay Soomaalida TikTok-ta isticmaasha aad iyo aad buu garanaysaa waa nin magac leh oo waxa weeyaan waxa la yiraahdaa Landera la yiraahdaa Taliya Landera la yiraahdaa gabadh hees qaadaysa ayuu kula jira ninkii oo la qorqoray oo timihii foosh xumaynta laga jaray suud loo xiray oo waxaan ku yiri gabadhii heesaysa ku garab ciyaaraya
ayaan arkay waan ku farxay bal waa kana ila eeg waa wax aad loogu farxo markaad aragto walaalkaayo shalay duruufuraysanaa oo wejigiisa aad ka naxaysay oo foolxumadiisa aad ka naxaysay maanta aad aragto isagoo qurux badan waa wax aad loogu farxo weeyaan marka waxaan leeyahay Soomaalidu kulay toole iyaguunbaa marna beertiis keliya marna waxa weeyaan boorka iska jafaa taasna intaasaan kaga gudbayaa waa walaalkiin ajaara maxaan leeyahay horta niyo Soomaaliyeed subscribe ma taqaanin malaha meesha laga taabto meesha yara cas ee hoosa laga taabtaa garashalaan ma hayso laakiin gabigiinu waa faas baatiin laakiin faasnimada ma arag niga joojiyo baalka heer taabta yaa anu ma jecli in subscribe iyo waxa ay dhahdo laakiin inagu isxilqaamo oo meesha yara hoose tuujiya kadibna si ay barnaamijyadayda ama waxyaalaha khaaska inii soo gudbinayo ay inii soo galaan waa walaalkiin ajaara oo in la hee